kulan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada faalo kooban oo ku saabsan xiriirka diblomaasiyadeed taariikh dhaqaale iyo amni ee Mareykanka Faransiiska iyo xiisadda hadda ka dhex taagan Mareykanka iyo Faransiiska ayaa aasaasay xiriir diblomaasiyadeed sanadkii 1778 kadib markii Mareykanka uu ku dhawaaqay inuu ka madax bannaan yahay Ingiriiska waa muddo hadda laga joogo 243 sanadood waxaana uu Faransiisku kaalmo muhiim ah siiyay Mareykanka oo ay xulafo ahaayeen intii uu socday dagaalkii xurriyadooda oo ay ku doonayeen Ingiriiskana kula jireen dowladii Fiji ee Faransiiska ayaa xiriirka diblomaasiyadeed u jartay Mareykanka 1942 xilligii dagaalkii labaad ee adduunka laakiin xiriirka ayaa caadi noqday sanadkii 1944 xiriirka labada dal waxa uu ahaa mid nabdoon marka laga reebo dagaalkii Kuwait ee 1798 iyo la dagaalanka Fiji ee Faransa iyadoo America taageeraysa Free France 1942 ilaa 1944 intii lagu jiray dagaalkii labaad ee adduunka intii lagu jiray dagaalkii sokeeye ee Mareykanka Faransiisku wuxuu faragelin military ku sameeyay Mexico markii Mareykanku ka adkaaday dowladihii Confederate of America wuxuu diray ciidan aad u badan xadka Mexico oo ku qasbay Faransiiskii in uu ka baxo dhanka amniga Mareykanka iyo Faransiiska ayaa kamid ah shanta xubnood ee joogtada ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay P5 labada dal waxay wadaagaan qiyam guud waxayna leeyihiin siyaasado isbarbar socda sida tan dhaqaalaha iyo amniga Mareykanka iyo Faransiiska ayaa si dhow uga wada shaqeeya arrimo badan gaar ahaan la dagaalanka argagixisada dadaalada lagu joojinayo fiditaanka hubka waxgumaada iyo dhibaatooyinka gobolka oo ay ku jiraan Afrika bariga dhexe Balkans iyo bartamaha Asia iyaga oo kamid ah awoodaha P5+1 Germany Faransiisku wuxuu ka shaqeynayaa sidii Iran looga hor istaagi lahaa inay samaysato hubka nuclear-ka wuxuu taageeraa ka qaybgalka Mareykanka ee geedi socodka nabadda Faransiisku wuxuu ka mid yahay shanta ciidan ee ugu sareeya ururka isbahaysiga waqooyiga Atlantic ee NATO loo soo gaabiyo wuxuu hadda u ololeeyaa dadaalada casriyeynta ururka kan ee NATO xiriirka dhaqaale ee labada dhinac Faransiisku wuxuu xubin ka yahay midowga Yurub waana saaxiibka saddexaad ee ugu weyn Mareykanka ee ganacsiga Yurub kadib Jarmalka iyo boqortooyada Ingiriiska ganacsiga iyo maalgashiga u dhaxeeya Mareykanka iyo Faransiiska ayaa xoogan sanadkii 2019 Mareykanka iyo Faransiiska waxay ku kala iibsadeen badeecado iyo adeegyo badan lacag cadadkeeda lagu qiyaasay 138 bilyan dhoofinta Mareykanka ee Faransiiska waxaa kamid ah kiimikooyinka warshadaha diyaaradaha iyo matoorada qaybaha elektrooniga isgaarsiinta software-ka kombiyuutarada aaladaha caafimaadka iyo sahayda iyo qalabka warbaahinta Mareykanku waa dalka ugu weyn ee maalgashi shisheeye ka ah Faransiiska Mareykanka iyo Faransiisku waxay leeyihiin heshiis laba geesood oo ku saabsan maalgashiga iyo heshiis canshuureed iyo waxyaabo kale xubinnimada Faransiiska ee ururada caalamiga ah Faransiiska iyo Mareykanka waxay ka tirsan yihiin tiro kamid ah isla ururada caalamiga oo ay ku jiraan qaramada midoobay ururka isbahaysiga waqooyiga Atlantic ee NATO golaha iskaashiga Euro Atlantic ururka amniga iyo iskaashiga Yurub G20 G7 ururka dhaqaalaha iskaashiga iyo horumarinta sanduuqa lacagta adduunka bangiga adduunka iyo ururka ganacsiga adduunka Faransiiska sidoo kale waa goobjooga waa ururka dowladaha Mareykanka sanadii 2016 heerka cabirka xiriirkoodu waxa uu dhamaa qiyaas 87% xiisadda labada dal ee hadda soo cusboonaatay waxay ku saleysan tahay dagaal dhaqaale sida qubaradu ay aaminsan yihiin economic war sida aynu la soconnaba fayraska corona oo dunida simay ayaa aad u saameeyay dhaqaalaha si gaar ah Mareykanka waxaa ku dhacay ama uu ku riday dhaqaale burbur saa'id ah taasi waxay keentay in Mareykanku raadiyo waddo uu dhaqaalihiisa dib ugu hagaajin karo ujeedka USA ma aha China ayaan ka hortagayaa ee waa sidee ayaan dhaqaale ku helaa waayo labadooduba loolankoodu ma qarsooneen oo waa laga wada dharagsanaa si Mareykanku u iibiyo ujeedadiisa dhaqaale ayuu UK iyo Australia ka iibiyay fikradda ka hortaga China ama faafitaankiisaba sidaas darteedna uu Mareykanku diyaar u leeyahay inuu u dhiso Australia kujisya leh tiknoolajiyada nuclear-ka oo muddo badanba ay raadinaysay halkaas waxaa ku baabay heshiiskii Australia iyo Faransa ee gujisyada oo 60 bilyan ku dhawaa
sanado badanna soo socday. sidoo kale Switzerland ayaa kaga baxday heshiiskii ay kaga iibsan lahayd diyaaradaha Rafale oo balaayiin dollar ku kacayay, iyadoo Mareykanku la galay heshiis uu kaga gadayo diyaaradaha F-35 iyo UK oo kaga baxday iyana heshiiskii talaalka oo 100 milyan ahaa. Mareykanku sida muuqata waxa uu dhidibada u taagay gaashaanbuur cusub, taas oo magaca uu haatan ugu yeeri doono ay tahay AUKUS, si mashruuciisa dhaqaale doonka ah uu u noqdo mid hirgala. Faaladii koobneed ee aynu ku eegeynay xiriirka Mareykanka iyo Faransiiska, taxanaha sooyaalkooda, saaxiibtinimadooda, meesha ay ka timid iyo xurgufta hadda soo kala dhex gashay waa inaga inta. Nabadiina dhamaantiinba.